xisbiga mucaaradka wadani ayaa si weyn u soo dhaweeyay mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka wadani ee dalkaasi Mareykanka gaar ahaan gobolka Minnesota xubnaani horkacayay Cabdiraxmaan Daahir Aadan oo inay weheliyeen Professor Maxamed Alabari iyo Axmed Nuur Qodax wareyntina waxa halkaasi ka hadlay afayeenka xisbiga mucaaradka wadani Ibrahim Mahdi Buuba oo halkaasi ka jeediyay hadallo mahadnaqa isagoo faahfaahin ka bixiyay xubnahan kala duwan waxaanu yiri maanta waxaanu ku soo dhaweynaynaa caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland madax xisbiga wadani ka tirsan oo ka yimid waddanka Mareykanka gaar ahaan gobolka Minnesota nimankaas oo ah runtii niman xisbiga aad iyo aad ugu qaali ah isla markaana lafdhabarta xisbiga gobolkaas Minnesota ama Mareykanba ah haddii aan idiin sheego magacyadooda waxaa ugu horeeya gudoomiyaha xisbiga Minnesota Cabdiraxmaan Daahir Aadan Professor Maxamed Alabari iyo Axmed Nuur Qodax oo runtii xubnaha firfircoon ee lafdhabarta u ah Mareykan ama gaar ahaan gobolka Minnesota waxaanu leenahay ku soo dhawaada dalkiinii hooyo waxay u yimaadeen dardargelinta iyo socodsiinta hawlaha xisbiga iyo inay bulshadooda reer Somaliland la qaataan waayaha ay ku jiraan isla markaana ay u kuurgalaan xaaladaha هذه يجر وقت دورشين كوجنا ama diiwaangelin ha socoto ama doorasho ha ahaatee saas darteed waxaan noo sharaf ah anaga xisbi ahaan in waftiga qiimaha leh aan ku soo dhaweyno xarunta Jamhuuriyadda Soomaaliland ama caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland anagoo joognay imika xarunta xisbiga wadani oo saaka diyaaraddu 5:00 subaxnimo madaarka soo dhigtay isla markaana aan saxaafaddu halka xilligaas ugu tagi kareenin sidoo kale iyaguna waxa halkaasi ka hadlay Cabdiraxmaan Daahir Aadan Professor Maxamed Alabari iyo Axmed Nuur Qodax iyagoo ka sheekeeyay xisbiga mucaaradka wadani iyo dalkaasi Mareykanka sidoo uga shaqeeyo waxaana yiraahdeen gudoomiye Cabdiraxmaan gudoomiye ku xigeenada xubnaha baarlamaanka oo iyagu si wacan noo soo dhaweeyay aad baad mahadsantihiin baxda saxaafadda idinkana aad baan idinku mahadnaqayaa annagu dalka waxaan ka tagnay September waqti badan ma aanan maqnayn intii aanu maqnayn isbedelo badan baa dhacay waxa la soo saaray barnaamijkii siyaasadda xisbiga la soo saaray isbedel badan baa ku dhacay xisaabtii kale ee xisbiga loo loolamaysay waxyaalahaas oo dhan waxay u baahdeen in aanu ka tala bixino talaan ugu soo noqonay markaa gudaha waxaanu kale oo u soo noqonay in aanu energize garayno oo waxa soo dhawaaday foreign registration kii baa soo dhawaaday in aanu qaybtayada ka qaadano iyagana waanu u soo noqonay marka sabaha iyo sababo kale oo dhowr ah oo aanu madaxda xisbiga ka wada hadli doono ayaanu gudaha hadda si degdeg ah ugu soo noqonay annagoo September-tii hadda ina dhaaftay kaliya dalka ka tagnay aanu halkan ugu nimidnay oo annagu aan u soconno inaan gurmad u nahay maanta Somaliland iyo ka badbaadino hawlahan adag ee imka la soo xiriiray marka waxa aad noo farxad geliyay dadka halkan jooga inay naga horeeyaan oo aad inaga horeeyaan wax ka barano oo aanu ka faa'iideysano haddana Soomaalidu waxay tiraahdaa tala waa dhowrta oo waa in la isku dardaro wadaanana wixii aanu kulli noqon ama karti aanu xaga kala aan isku darno oo aanu markaa isku geysano waxaan u aragnaa in ay xisbigani dadka hogaaminaya ay karti iyo aqli iyo sharaf iyo cilmi badan la yimaadeen hase ahaatee haddana mar walba waxa loo baahan yahay in la isasi kabo oo halka la joogo kor looga sii qaado haddaad ku nasatid message joogtid hoos u dhacon baa ka bax marka hoos u dhac ma rabno mana dhici doono inaan ka sii wanaagsanaano oo aan dardar gelino dadkaanu ku noqonana ee dibadda jooga ugu horeeyay gudoomiyaha xisbiga wadani ee waddanka Mareykanka Marwuun Cali Firin oo runtii aan salaan qaali idin soo diraysa iyo dhammaan
gudoomiyaasha gobolada xogeyaasha gobolada iyo dhammaan mas'uuliyiinta xisbiga wadani ee wadanka Mareykanka guud ahaan qaaradda North America salaan diiran ay ka gudooma sida ay inagu warameen xubnaha culculus ee ila socday xisbiga wadani waxa weeyaan runtii waxa arinta ugu weyn aan halkan u nimidnay waa arin runtii gaar u ah xisbiga wadani oo aan doonayno waxaan had iyo jeer isweydiinaa markaan halka joogno dibadda markaan joogno waxaanu qaban karnaa wuu yar yahay marka mar walba culaysku wuxuu naga saaran yahay anagoo arkayna xaaladda guud ee maanta wadankeenu ku jiro iyo culayska guud ee dhammaanba saaran bulshada Soomaaliland ee ah sidii wadanka loo badbaadin lahaa. Ismaan Axmed Ismaan, telefishinka caalamiga Star magaalada Hargeysa.